daawada ka soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono dhalinyarada deegaanka Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. barnaamijka waxaa idin la socodsiin doona aniga Axmed Sulmaan Shiina iyo saaxiibkii Nuur Wali Xirsi oo ku magac dheer Nuur Ugaas. barnaamijkan ayaa waxaan diiradda ku saaraynaa booqashadii gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose Axmed Maxamed Taqal oo ku yimid magaalada Dooble. gudoomiyaha ayaa intuu magaalada joogay wuxuu la kulmay shirar la yeeshay dhalinyarada magaalada Dooble isagoo booqday xarumaha dhalinyarada magaalada Dooble oo ay markaa ay ka socdeen waxbarasho computer training. barnaamijkan waxaa ka daawan doontaan muuqaal baahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xafiiska magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. dhammaan dhalinyarada youthka ee degmada Dooble taasi waxaan ugu nuuxnuuxsanayaa dhalinyartu sideedaba haddaad maqasho dalka isaga muxuu ku hormaray waxaa horumari kartaa dhalinyaro. maanta ragga ciidamada waa dhalinyarada, ragga youthka ee waxbarasho haddii la dhaho iyo shaqo haddii la dhaho la qaadanayo waa dhalinyarada. dhalinyaradu runtii waa lafdhabarka dalka isaga ah. dhalinyaro maanta xafladani idinkaa iska leh. waxaan doonayaa haddaad dhalinyarada tihiin kow waxaad ka fogaataan waxyaabaha nabadgelyada xumada keenayo. laba waxaad ka fogaataan waxyaabaha qabiilka ah. qabiil iyo qaran meel ma wada galaan. Soomaaliya qabiilkiiyo qarannimadu waa laba la yiraahdo isqaadi karin. isma qaadi karaan qofka inuu qarannimo sheegto iyo inuu qabiil ku shaqeeyo isma qaadi karaan. waxaa la rabaa haddaad dhalinyarada tihiin ka fogaada wax alla wixii qabiil keenayo. arrintaasi runtii waa idin anfacaysaa. waxaad ku dadaashaa waxbarashada, waxaad ku dadaashaa horumarka. Axmed wuxuu ahaa dhalinyaradii ka tagtay deegaanka Dooble oo haddana ururkan hadda dhalinyarada xubin ka ahaa oo in badan isla soo shaqeynay. aan ku faraxsanahay inuu maanta asoo gudoomiyaha uu noo mar kale noo imaado. marka hore wuxuu ka tirsanaa dadkii inta ka tagay oo dhalinyarada ku jiray haddana uu sii gudbay jago ka helay Kismaayo. alxamdulillah hadda asoo xil wada noo imaaday in badanna uu kala shaqeeyay dhalinyarada iyo horumarka iyo hadda xilliga ay taagan tahay. alxamdulillah gudoomiye meeshan waxaa fadhiyo ururada haweenka oo isku jira qaybaha kala duwan kuwa bulshada ururada sanitationka. marka gudoomiye ku soo dhawow magaalada ku soo dhawow deegaankaada ku soo dhawow. alxamdulillah taas wax qabad cad bay sameeyeen. hoolkaas bay runtii oo maskax badan iyo aqoon badan ku baxday yaan ka shaqeynay sidii loogu dhisi lahaa. ururkii dhalinyaradii hoolkii uu helay waxaana gacan naga siisay hay'adda la hay'adayso. waxaan kaloo sameynay bal maadaama aan hool helnay sidii hoolku wax loogu qaban lahaa indhahaaga ku soo aragtay macallinkii waxaan sameynay qalabkii markaan helnay in bal ardayna loo tababaro ardaydaas hadhowda ayaga macallimiin noqdaan. waxaan aad ugu faraxsanahay macallimiinta hadda wax baranayaan oo ardayda naloo tababaray oo haddana ardayda dad u tababarayaan. waxaa meesha fadhiyo ardaydii qaarkood wax baranaysay
taasina waa dadaal aan sameynay gudoomiye waxaan kaloo ka rabnay hooyooyinkana arkaysid oo hooyooyin ururka sanitationka ah qaybahooda kala duwan waa hooyooyin iska volunteer wax ugu shaqeeyaan ka hooyo ahaan iyo ka urur ahaan they are united one umbrella aad baan u salaamayaa dhalinyarta hooyooyinka qaaliga ee sharafta leh ee ka soo qayb galay shirka aan ku soo dhaweynayno gudoomiyaha dhalinyarada Jubbada Hoose mudane Axmed Taqal oo martino ah oo nala joogo wax yar nala joogay haddana nasii dhaafo safar shaqo Kenya u tagay haddana noo yimaaday gudoomiye mid baan ku leeyahay gudoomiye mar labaad soo dhawow martiqaadkanagii waa wali waa ku dhiman yahay si fiican aan ku martiqaadaynaa xog baan kala qaadanaynaa dhalinyarta iyo si u shaqeyso hawlaha horumarka ee Dhobley ka jira arrimahaas oo dhan insha Allah waa isla wadaagi doonaa si qalbi furanna waan ku soo dhaweynaynaa dhalinyarta waa laf dhabarta bulshada waa bulshada dhalinyar lahayn meel ma gaadho bulshadii horumarta bulshadii nabad hesha bulshadii meel gaadha waa bulsho dhalinyarteedu 100% ay nadiif yihiin fikir caafimaad qabo saliim ay leeyihiin horumar iyo nabadgelyo ay ka shaqeynayso waa bulshada horumarta waxaan arkayaa runtii si aan ka filaynin reer Dhobley sababtoo ah waxaan islahaa dawladii Kismaayo bay joogtaa systemkan Jubbalandarka ama fikirkan abaawulkan ama hor socodka wanaagsan ma gaarsiisano bal waxaad moodaa inaad naga hormarsantiin xaqiiq ahaan haddaan nahay reer Kismaayo sababtoo ah waxaan arkayaa ururadii bulshada oo aad u fircoon oo runtii aad u taagan inay meel iska soo saaraan isla markaasna dawladooda ay garab istaagaan waxaan runtii aan igu dhiirigelinayaa wanaaga aad wadaan oo isku tashiga ah inaad sii wadaan la shaqeynta maamulka iyo madaxda dhamaantiinba ay noqoto mid muxuu ahaayay meesha loogu talagalay ay marto runtii waxaad ogtihiin Jubbaland meel bay ka bilaabatay meel bay maraysaa kudigin xoogaal baad u tihiin meesha ay wax ka bilaawdeen iyo meesha maanta wax marayaan isla markaasna ummadii Soomaaliyeed ama dawladaha maanta maamul goboleedyada ama dawladda dhexe meesha ay dawladda Jubbaland kaga jirto waa dareemi kartaa siyaasad ahaan horumar ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba guusha maanta la gaaray cid walba waxa weeye way ka shaqeeysaa mas'uuliyad ay idinka qayb baad ka tihiin in guusha maanta ay gaadho laakiin waxa sabab u ah waxa la yiri bulsho wanaagsan hadaad aragtid iyo dal wanaagsan hadaad aragtaan hoggaanka hore la fiiriyo waxaan nasiib u yeelanay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam inuu noqdo nin cadaalad ku saleysan isla markaasna hogaamiye wanaagsan ah aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa asagana dadkan aad arkaysaana isagu tusaale u noqday isaga tusaale noqda golaha wasiirada aad aragtaan golaha xildhibaanada maamulka dhinac walba admigi isagii ayaa labada fiirsaday wadada uu maro uu qof walbana maraya sababtoo marka waxa la gaarayaa guul hadii meesha la imaado wada tashi iyo isku tashi iyo muxuu kala amar qaadasho waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay runtii madaxweynena wuxuu ku sifoogay Soomaali weyn Soomaalinimo waa ninka maanta ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso inuu sharaftii iyo cizigii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ninkii soo celin karo kaliya laga sugayo weey runtii amaanta iskama amaanayo maana isdaad ku soo caan baxday ama laga sheego malihi laakiin waa xaqiiqo aad wada ogtiin marqaati aad ka tihiin ugu dambeyn dhalinyarta magaalada Dhobley ayaa xaflad sagootin ah u sameysay gudoomiyaha dhalinyarta gobolka Jubbada Hoose Axmed Maxamed Taqal awadayaal waxaa intaan noogu dhan barnaamijkii gaarka ah aan ku eegeynay dhalinyarta deegaanka Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigu Axmed Suldaan Shiina iyo saaxiibkay Nuur Wali Xirsi Nuur Ugaas intaan barnaamij noocan ah kula ku kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu